mas-uuliyiinta meherada Golden Cafe ee ku taala bartamaha magaalada Hargeysa ayaa munaasabad hadhma sharafeeda u sameeyay ciyaartoyga xulka gobolkaasi Sool ee ka qayb galaya koobka ciyaaraha gobolada Somaliland waxaana munaasabadani ka soo qayb galay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Salebaan Ciise Axmed Kaar Xagle Toosiye agaasimaha hay'adda duulista iyo madarada Somaliland Jabarte Saadle isuduwa wasaaradda ciyaaraha gobolkaasi Sool Maxamuud Gurey mas'uuliyiin dhalinyaro iyo xubno kala duwan inta munaasabadaas socotayna halkaasi waxa laga jeediyay hadallo kala duwan ugu horreynna halkaasi waxaa ka hadlay Axmed Saki oo isagoo ka mid ah mas'uuliyiinta meherada Golden Cafe isaguna faahfaahin ka bixiyay ujeedada hadhma sharafeedkani halkan maanta waxaan ku casuunay meheradaan ama Golden Cafe ahaan dhalinyarta gobolka Sool matalaysa runtiina muujiyay ciyaar inta labada ciyaarada ciyaareen ciyaar qurux badan iyo ciyaar wanaagba runtii aan u rajaynayna insha Allah inay ku guuleystaan koobka sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha gobolkaasi Sool iyo xubnihii kala duwan ee ka soo qayb galay waxa weeyaan xulka gobolka Sool waxaan idin leeyahay jacayl gaar iyo muxubo gaar ah la idin qabo waxaan soo dhaweynay iyo waxaan imaanshiyo meel walba la idin keenay la idin jeclaanaya waa ciyaar wanaagin iyo kubadii quruxda badneed ee soo dhigteen ee soo bandhigteen waxaan inta idin raacinayaan idinku dhiirigelinayaa inaad sanadkan ka dhigi kartaan sanad 7 tartan oo hore la qabtay wali gobolka Sool kugu guuleysan final la mooyman sanadkan inaad tihiin u qalantaan ciyaartoy qaadina kara koobka Sool la geyn kara gobolku waa goboladu waa isku wada mid laakiin si gaar ah idin la dardaarmanayo waxaan leenahay gobolka sanadka waxaan doonaynaa inaynu baalka xagga bariga la geeyo insha Allah hadii ilaahaymo wax la idin dhiirigelinayaan waxa weeye niyad sami iyo in la idinku soo dhaweeyo magaalada waxa kaliya ta laynaga rabaana waa kubad wanaagsan iyo akhlaaq inaynu muujino waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa mas'uuliyiinta iyo mulkiilayaasha meherada Golden Cafeteria ee magaalada Hargeysa oo maanta halkan casuumad ugu sameeyay ciyaartoyda xulka kubadda cagta ee gobolka Sool ee waliba kubadda cagta iyo orodadaba aad iyo aad baan mas'uuliyiinta iyo mulkiilayaasha meheradan ugu mahadnaqaynaa runtii waxaa munaasabadda nagala soo qayb galay wasiir Salebaan Ciise Xagle Toosiye oo ah mas'uul ku weyn gobolada Sool Sanaag Bohol iyo Xaysimo iyo sidoo kale agaasimaha guud ee hay'adda madarada iyo mas'uuliyiin kale aad iyo aad baan runtii ku mahadnaqaynaa ugu dambeyn halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Salebaan Ciise Axmed Kaar Xagle Toosiye iyo agaasimaha hay'adda duulista iyo madarada Somaliland Jabarte Saadle ciyaarta quruxda badneyd ee aad guulaha wanaagsan ka soo hoyseen haddaad tihiin ciyaartoyga gobolka Sool idinkoo runtii muujiye ciyaar wanaag cid kastana tusay inaad tihiin gobolka ugu cadcad ma garanaysaa wareeggii koowaad idinka oo iminka u soo baxay wareeggii labaad quarter finalka qodobka labaadna waa dhiirigelin aan idinku dhiirigelinayno sidaa uu sheegay guuleed in aad halkaa ka sii wadaan ciyaar wanaagga iyo inaad sanadkan cid idinka dhow iyo cid idinka leh ma jirto koobka soo dhawaada shaqada wanaagsan iyo ciyaarta wanaagsan iyo baaskan gaagaaban ee aad ciyaaraysaan aad sidii Barcelona iyo kubadda isugu baasasaan Arsenal baa gaagaabka labadaba waan ugu ambaleynayaa ka reer Sool ahaan inta ka bacdi midkii labada aynu ku daraynaa wuxuu noqonayaa boorteena wanaagsan ee sidii Patrick Schmeichel kubadda u qabsanaya markaa isagana si gooniya lambaasa oo ciyaaryahanka u saameynta badan ahaa garoonka intii la daawanayay aad iyo aad baan isagana si gooniya u hambaleynayaa Ismaan Axmed Sabti Hargeysa.